buuraha Golan High waxay koonfur galbeed kaga beegan yihiin caasimadda Suuriya ee Dimashq waxayna masaafo ahaan u jiraan 40 mayl dhererkooduna wuxuu gaadhayaa 1200 kilomitir square. buuraha Golan intooda badan waxay Israa'iil ku qabsatay dagaalkii bariga dhexe ka dhacay 1967. dowladda Suuriyana waxay isku dayday inay buuraheeda dib uga soo ceshato Israa'iil iyadoo dagaal ku qaaday sanadkii 1973. waxayna dagaalka kadib labada dal ku heshiiyeen in la sameeyo dhul dhan 70 kilomitir oo militarigu ka caagaan isla markaana ay gacanta ku hayaan ciidamada nabad ilaalinta ee ka socda golaha ammaanka ee qaramada midoobay. in ka badan 30 deegaan oo yuhuuddu leedahay ayaa ku yaala buuraha Golan qaybta Israa'iil ka maamusho waxaana ku nool dad lagu qiyaaso 20,000 oo qof. deegaanadaas ayaa lagu tilmaamaa inay sharci darro yihiin marka laga eego dhinaca shuruucda caalamiga iyadoo Israa'iilna ku doodayso inay sharci yihiin. sidoo kale waxaa ku nool dad Suuriyaan oo gaadhaya 25,000 oo qof badankooduna ay yihiin carabta Druze loo yaqaano kuwaas oo aan meel lagu qixin tan iyo markii Israa'iil ku soo duushay buuraleyda Golan. Israa'iil ayaa 1981 dhulka ay maamusho ku darsatay buuraha Golan High iyadoo aanay jirin aqoonsi caalami ah oo ay ka heshay adduunka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in la joogo xilligii buuraha silsiladda ee Golan loo aqoonsan lahaa inay ka mid yihiin dhulka Israa'iil. madaxweyne Trump waxa uu si aan gabasho lahayn ugu qoray boggiisa Twitter-ka in buuraha Golan ay ka mid yihiin dhulka Israa'iil. Mr. Richard Haas oo ah sarkaal hore uga tirsanaa wasaaradda arrimaha gudaha ee Mareykanka oo hadda ka mid ah golaha looga arrimiyo siyaasadda Mareykanka ayaa si weyn uga hor yimi hadalka ka soo yeedhay Trump isagoo sheegay in aqoonsiga Israa'iil la siiyo ka hor imanayo qaraarka ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. sanadkii 2017 madaxweyne Trump wuxuu magaalada Qudus u aqoonsaday inay tahay caasimadda rasmiga ee Israa'iil isagoo amar ku bixiyay in safaaradda Mareykanka ee Tel Aviv loo soo wareejiyo magaalada Qudus. waxaana go'aankaasi weyn uga soo horjeestay dowladda Falastiin iyagoo sheegay in bariga magaalada Qudus ay tahay caasimadda mustaqbalka ee Falastiin. sidoo kale waxaa go'aanka cambaareeyay golaha guud ee qaramada midoobay wuxuuna madaxweyne Trump dalbaday in dib looga noqdo go'aankiisa.